shirkaan ay sida wadajirka u qabteen isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro xildhibaano siyaasiyiin odayaal dhaqameed ka soo jeeda Somaliland ayaa waxa ay ku qaadaceen shirka madasha qaran ee Muqdisho maanta ku soo gabagaboobay tabashada ayaa waxay tahay in kuraas ay lahayd Somaliland oo aqalka sare ah dhanka Puntland loo weeciyo sida la sheegay odayaasha dhaqanka ee Somaliland ayaa waxay ballan qaadeen in aysan soo xulaynin aqalka sare ee baarlamaanka iyo waliba ka weyn ee baarlamaanka sabab ay ku sheegeen in cadaalad darro ay jirto isla markaana dawladda Soomaaliya ay ku eedeeyeen madaxdeeda haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada iyo sidoo kale odayaashii dhaqanka ee kulanka hadalka ka jeediyay hadaladooda waxa ka mid ahaa waxaan haddaba cadeynaynaa oo maanta aan cid walba u cadeynaynaa inaanaan soo qori doonin haddaanu nahay odayaashii dhaqanka ee Somaliland ee saxiixayaasha ahaa 135 kana ku jiray inaanaan aqal sare iyo aqal hoose midna aanan soo qori doonin walaalaha iyo haddii ay la weynaatay 60 kursi oo markii horeba aan xaq ku ahayn Somaliland oo markii horeba cadaalad darro ahaa oo markii horeba aan wax la dhowrayay oo la habal warta waqti aan hal la gaaro hadii ay maaragtay ay u qaateen dadkan inaan ahayn dad waxba raba ama waxba doonaya ma aha sida kuraasta la waa la rabaa wixii xaq loo yahay waa la rabaa laakiin Soomaalinimada aan ugu weyn laakiin idinka hadaan idin la weynayn de walaalayaal waxa leenahay waa mahadsantihiin waxaanu halka u joognaa idinka sugaynaa beesha caalamkuna aan ku wargelinayna iyo cid kasto Soomaaliya danaysa inaynu sidii aynu u xisaabtami lahayn isugu nimaadno kuraasi haday idin la weyntay 60 kursina qaybsada oo qaata oo u qaybiya maamulada goboladana maamulada u bedeshan u qaybiya waxaan anagu aqoonsanahay ma aha federaal sharciga Soomaaliya ka jiraana ma jiro waxa jira laba jamhuuriyadood oo Soomaaliya iyo Somaliland la yiraahdo waxaanu go'aansanay inaanu halka beesha caalamkana aanu u sheegaynaa inaanu walaalahayo kala ducaysanay kala faataxaysanayno inaanu halka arintaasi si wada jira aan shir u qabanno cadayno inaanu kala guurnay laba jamhuuriyadood oo walaala oo is aqoonsaday oo is ogol inaan nahay waxa yeeshaa walaalayaal dawladana iska dhista annagu ka qayb gali mayno aroorta waxaanu idinka fadhinaa laba diyaaradood oo Hargeysa iyo Burciyo Beerman ugu keysaan waxaan rabnaa midnimo Soomaaliyeed baan rabnaa dalka midoobaan rabnaa cadaalad baan rabnaa Soomaalinimo baan rabnaa inta waxaan u joognay halkan taas weeye laakiin laba arrimood oo ii muuqata hadda dawlad laguma dhisi karo kuma dhismayso koow qabyaalad aan cadaaladiba ku jirin oo la sameeyo iyo sharci darro dal leeyda waa lagu maamulaya labada arrimood baa ii muuqda Axmed Cumar Hon Cable TV Muqdisho.